wadada ayuu igu qabsan jiray wadada ayuu igu kufsan jiray marka adna dareenka dadka ma cabiri gabar Soomaaliyeed oo ku joogto dalka Mareykanka hadda ayaa waxa ay la wadaagtay ummadda Soomaaliyeed clip ah oo ay uga hadlayso in uu kufsaday abtigeed laxmi ah markaan ku leeyahay abtigeed laxmi ah waa abtigeed hooyadeed la dhashay hooyadeed ayada ninkii la dhashay oo abtigeed ahaa oo hooyadeed isku aabihi isku hooyo ahayeen baa kufsaday runtii videoga uu dheeraa uu badnaa oo de kulli ma soo wada qaadan karno almost 15 minutes oo gaaray laakiin inta aan la yaabay ayaa waxay ahayd oo ay sheegtay gabadha horta waxay sheegtay in arintaasi ay uga dhacday ama xilliga ay ku dhaceysay ay joogtay dalka Soomaaliya gaar ahaan Somaliland xilligaas aysan waxba sheegin ay aamustay iyadoo sheegtay in ay nafteeda u baqday inay wax ka soo gaaraan hadda ay Mareykan tagtay ayaa waxay go'aansatay in ay shaaciso arintaas si ay u hesho xuquuqdeedii ayada ka maqanayd bal yaan warka idinku daalinayne aan hal mar clipkan yariiska aan dhageysano runtii clipka uu dheeraa oo idinlama wadaagi karin waa almost de waqti badan u qaadanaya laakiin erayada yar balan wada dhageysana hal mar wadada ayuu igu qabsan jiray wadada ayuu igu kufsan jiray marka runtii dadku horta sidaan idin sheegay wax walba adduunka soo mari karo wax walbo intaad nooshahay waad maqlaysaa videogan video ka horeeyay baa waxaa ka hadlayay inaad dhegeysato ma aqaanee war gabdhaha Soomaalida ahi yani waa sharafteena badbaasano hadda arinta intee ka soo tagtay baa waxay sii maraysaa in abti waa hooyo aan naas lahayn markii lagu leeyahay abti waa hooyada oo aan naas lahayn waay nin baa waxa lagu leeyahay wuxuu kufsaday gabadhii asaga u dhalay waxay la mid tahay anigu waxaan aaminsanahay gabadha la dhashay iyo gabadha abtigu tahay isku mid bay ku tahay uma jeedaan wax farqi ah gabadha aniga dhalay iyo gabadhan abtiga u ahay isku wax farqi ah uma dhaxayso damac markii la dhaho wax farqi ah uma dhaxayso gabadha aad abtiga u tahay waa gabadhaadi waay gabadha dhashay waay midda adiga dhashay adiga u galbooday la mid tahay marka ninkaas arintaas sameeyay waxaan dhihi lahaa dambi weyn buu ku dhacay dunuub weyn buu ku dhacay ninkaas qaladka uu galay haddana gabadha waxayba sheegtay videogeeda markaa dhageystay in qoyskeeda familkeeda arintii oo dhan ay u sheegtay laakiin haddana waxba looga qaban waayo ayada laftirkeeda dhibaato la sii gaarsiiyey waxay ka mid tahay bulshada Soomaalida ahi dhibaatada yani dadka qaar ay ku hayaan dumarka Soomaaliyeed runtii arinkaas waa arin xun wax xun markay dhacaana waa in ciqaab adag la marsiyo dadka yani qofkaas si bulshadii ay nabad u hesho markii lagu leeyahay qofka qof dilo waa in loo dilo qofka sinaysto waa in maxal jir dhagax lagu dilo oo diintaanka ay sheegayso waa yani xarig ummadda kale xiraya waa markuu qof maanta qof dilo haddii la dilo way adkaanaysaa qof inuu ku dhiirado qof inuu dilo markuu nin imaado uu gabar xoogo oo ilaahay kuma daran faraha laga qaado waxa fududaanayso in yani dhibaatadii meeshii ay ka sii socoto laakiin haddii markaasi arin adag lagu sameeyo xad adag laga oofiyo waxa istaagayso qof walba naftiisa uu cabsanaya marka dadka adduunka waxa kala celiyo waa sharci dawlad walba waxay ku dhisanta waa sharci dalka Uganda aan joogno waxa lagu kala cabsado oo ilaahay kuma darnaaday qof walba uu ka cabsado waa sharci annaga marka waxaan rabnaa Soomaali haddaan nahay ereyga sharciga aan ka cararaynaa sharci marka ka carartidna wax ku hirgelay ma jirto
والإلما أذي الريالو أرمها ويصورنا النقدين أرنتان وليبا حتى وليبا سندي قدام بي صومالي كسول لابتين أبتجيبا وحتى وحن مقل وحن أركي فيديو مرة رأها أو إلهكم مدر لادين نين قبل ديسا حتى حوغيو ورصومالي وحانا لغا حينين إلهكم تمجرتو أرنتا مركا أنا إسماعيل لهان كشخصي هان كموادين صومالي دهان وعندي لها يقولي أنت يقول فكر كاه إن لقى صار إلهي جل وعلا أوريدي وبكسو صار إلهي جل وعلا كتاب القرآن وحكستوي كعجين وحكم قد مله برب بريم والبحلكي سقرآن كوجرا لما تيجي جتو حتى هاي قرآن كتان كتاب كمير دقني يعني كتقني وحارنا وعين نوها وحار والله نسوي لك نوها مركب وردتك إني شريعة الإسلام كوكو رغمان dhibaatadana haysato waxana haysto problemkana haysto waa kitaabkii oo ka tagnay oo aan meel dhignay arintan waxaan qabaa as a Somali citizen person in lagu xallin karo shuruuciyaha dalka u yaalo shuruucda diinta islaamka in la mariyo qofkii gabar xoogo qofkii dhibaato noocaas sameeyo ciqaab adag in la marsiyo si kuwa dambe ee soo socdo إسم برنامج كسوق ديرناني هذا حلقة هذا يو أبتي قبل يسقف صلي وأرين أتولدته حتى أنا مثلا نكاسو كسي اللي تاني قبل يسقف صلي قبل أسقف عليه أبتي كسي اللي تو مركي anyway يا برنامج مرة بينو صيدر هذا فيديو لايك يسار هدي سبتها هنا وأدوني سمر البرنامج إن الله سعته وحكى عصنا إن سبسكرايب جنا لكسرته فيديو هدي أتكاشي وكل رجلي إن الله يكسرته هدي أدوني سفكر قروح بدن إن أنا لو ذاك توان وجهي إن كاجو حيو كومنتيجا حاسة نلو ذاك هذا أدوني أصحاب هذا إني برنامج كان وقعدنا شركة نوتابو أنت برنامج نوعنا كل منا وحنا دلنا هاي أنت اللي اسكولها يا صومالي ماذا دي هل إذن كهلو فيديو جنا نقرحية